حوي ولا ليال باب كستبا موضوع كستبا وحوليه ثمرات يشي مهم iyo thamarooyin la doonayo in ma garanaysa qofku markuu amalkiisa uu sameeyo inuu ka eego laakiin haduu bilaa thamarayahay amalkiisi oo wax cabsiya wax isbedela una lahayn de waxa weeye waa amal ma garanaysa unan qofkaas thamaradiisa u helin insha Allah ta'ala marka thamarooyinkaas waxa kamid in cabsidu ay tahay khayr soconaysa oo qofku haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsanayo wuxuu noqdaa qof ahlul khayr oo aan sameynayn illa wax khayra ma ahani qofkaas wuxuu noqonayaa qof khayrka hayin oo hoggaan oo qof naftiisa ma garanaysa kula tacaalay ama barayba inay noqoto naf khayriin oo naf khayr ma ahani wax kale ayna sameynayn nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkii ku yiri idar daaran wuxuu ku yiri alayka bi taqwallahi fa innaha jima'u kulli khayrin waxay kulminaysaa shay kastaba oo khayra ay kulminaysaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay in cabsidu ay kulminayso shay kasto khayra markaana thamaradeeda waxa kamid in shay kasto oo khayra ahayn u noqonaysid oo ma garanaysa oo hagaan u noqonaysid thamarada ay leedahay waxa weeye waa sabab ay u tahay linayli rahmatullahi subhanahu wa ta'ala rahmada ilaahi subhanahu wa ta'ala sabab ay u tahay in agaadid ay u tahay rahmada ilaahi oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ardi 100 rahmah ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray maalinta uu abuuray samooyinka iyo arlada wuxuu abuuray 100 rahmo ayuu abuuray kullu rahmatin mil'u ma bayna as-sama'i wal ardi rahmad kasta waxay buuxinaysaa ama qadarkeedu waxay laagtahay in buuxisa samooyinka iyo dhulka inta u dhaxaysa ayay buuxinaysaa wuxuu qaybiyay faqasama minha rahmatan bayna al-khalaa'iq rahmad kaliya ayaa wuxuu u qaybiyay dadka oo rahmadaas waxay tahay ay dadku ku wada socdaan oo waalidkiisa ugu naxariisanayo oo qofka kale ugu naxariisanayo oo baahimda loogu naxariisanayo oo ma garanaysa bil aadanku ay iyo makhluuqaadku ay isugu naxariisanayaan وبها يتراحم الخلائق فإذا كان يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم حجري مرك أي مالنت يوم القيامة قادو ومالنت يوم القيامة ليسكو يمادو قسرها على المتقين وحكو سوقابين يا أما كوكوب يا رحمة دتك إلهي سبحانه وتعالى كبقة وزادهم وحونا كوكورين يا 99 شغاشن iyo sagaal raxmadood ay ku kordhinaya hadhowtana waxa weeye 100 ay noqonayaan markaan waa sidaas qofku haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqo rahmadiisa haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqo rahmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala in weyn ayuu wax ku yeelanaya markaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inuu ka baqnaa si aynu rahmadiisa u helno at-taqwa sababun لقبول العمل التقوى يعبسدو وحوي وسبب أي أتاي إن عملك لقى أقبله إنما يتقبل الله من المتقين وإلهي سبحانه وتعالى وحير إلهي سبحانه وتعالى وحوكا أقبله تتك متقين تا أيوكا أقبله عمر بن عبد العزيز أيانبو أيو أقري أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين في عصره أيانين أيو أقري وراق وحوكو يري أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى وحنكود درميا عبسد إلهي سبحانه وتعالى الذي لا يقبل غيرها تاسو أنا وحن يدهين لا أقبلين ولا يرحم إلا أهلها كودنا وحن أهين لو من حريستو هديد لو نحريستو وحلو نحريسنا يا معناها تتك متقين تا هديد وحلقة أقبليا وحلقة أقبليا تتك متقين تا ولا يثيب إلا عليها لقمنا أبا المري قفك إلا على التقوى إلا قف لازمي وكتاغن ماهانه عبسد إلهي سبحانه وتعالى فإن الواعدين بها كثير dadka kuwa inay cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala way badayihiin wal aamilina fiha qalil kuwa wal aamilina biha qalil kuwa ku amal fanayana way yar yihiin markana sida way dadka ahlu taqwa iyaga loo dhaxriisanaya iyaga amalka laga aqbalaya
iyagaa la weyneynaya oo la sharfaya oo la karaameynaya. dadka ku weyneynaya maanta way farbadayin oo kuwa farabadan oo aan ilaahay ka cabsanayn ayaa markay hadlayaan waxay ku dhahayaan ilaahay ka baq, ilaahay ka baq. hadal hays ayaa waxay u noqotay inay dhahaan ilaahay ka baq. kuwa kalena iyaga laftirkoodana way jiraan dadka ugu yeeraya in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsanayo, laakiin dadka farabadan kuwa ku dhaqma ee iyaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya waxa weeye waa kuwa qaliilka ee yar ee weliba daa'imaya. ilaahay ka baq way ku dhahayaan, wayna ku waynayaan, iyaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala way ka baqayaano macnaha ka baqitaankii way daa'imayaan. oo qofka hadduu ka baqitaanka daa'imo dee ilaahay wuu ka baqay, laakiin qofku hadduu ka baqitaanka iyo cabsida daa'imi waayo waxa weeye dee waa qof iska tegay. التقوى سبب لنجاة من عذاب الدنيا. عذابت الدنيا ذا إنا كبد باديد أي عبسدو أتهي سبب. مركا عذابت الدنيا ذا ويقبستا تويني دتك مركا لهلاقيو دتكي قال الله لهلاقي جري أمدي هوري قرون دي إن لغو هوري سيدا قوم نوح يقوم لود يقوم عاد وثمود يقواس عذابك كيمي أو قلق عذاب كاستد كوي أهل المتقين تا ما يقبسن أو ولا بدبادية. عذاب كعادي جاي الدنيا ذا يبتحانون كي يبلايا داسنا تقفك مسلم كارن ولا بدبادية إلهي سبحانه وتعالى كعب صلاة بدبادين تنامها أو كليا إنه يكون عن مسيبين كالدنيا ذا إنه يكون عن لكن سوحوي إنه يكون عن لكن سأكوس مرتد هذه أكوس مرتد وإلهي سبحانه وتعالى صمر يعبسي كفائديد أو التي ما ديد يحوي إلهي سبحانه وتعالى وكابد بادية لكن ما هبت بادينتو مقارنة إن هذا مقارنة مصيبة لغو كينين إن هذا وح لبا الدنيا دا كو أرق تاس ماها محايلة الدنيا دو خليق أي أتهي من الابتلاء والمصائب. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إلهي سبحانه وتعالى وحولي قومك يهري مركي لها لاقي ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وحانوا بدباديني كوي إلهي رميي كوي إلهي رميي أيانو بدباديني كوي إلهي رميي كان عبصدي محايا كواس وحي أهايين كو إلهي سبحانه وتعالى كعبصدي لأجل التقوى أيانو بدباديني أي إلهي سبحانه وتعالى ليهي. التقوى توصل إلى مرضات رب أن عبصدو ثمروينك إلهي وحاكم وحي كارسين سارها لأنشاء إلهي سبحانه وتعالى أي كارسين سارها وتكفير سيئات وحكاتر ترسا حمان تايكات ترسا ونجاة من النار والفوز من الجنة بالجنة إن النار كبادد إن قول سجد جنة. إلهي سبحانه وتعالى وحيري ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. إلهي سبحانه وتعالى وحيري هديدتك أهل الكتاب كعه كوي يهودي ونصارى ومديو هوري لغسو دجيه كتابة سيبا يهود ينصارى كواس هدي إلهي سبحانه وتعالى رمين لهايين وأي كعبسن لهايين وحانو كتاتر لهايين حمانيان معاسية الدنوب كفر أسميين وانو كتاتر لهايين ولا أدخلناهم جنات النعيم وحانو قليل لهايين جنوين أيانو قليل لهايين مركانا waxaa macnaha lagu waa sidii macnaha waxa lagu sheegay in xitaa cabsidan qofku haduu la yimaado in laga taatirayo xumaantiisa sababtoo ah waxa halka ma garanaysaa lagu ishaaraya in cabsidan qofku haduu la yimaado uu ka badbaadayo dunuubtii inuu daa'imo oo isaguba ka tagayba markuu dunuubtii ka tagana qofkii dambigii si horay waa laga taatiraya sababtoo ah cabsida waxay dhaxalsiinaysaa cabsidu in qofkan uu dunuubtii ka tago أي دحل سين سعب مركانا واسطاس التقوى سبب لإكرام عند الله سبحانه وتعالى ثمرة تضبط الحاد إلى هو حوي عبسيد وسبب أي أطاع إن الله سبحانه وتعالى ككراميه إن أكرمكم عند الله أتقاكم كأكرم بدن إله سبحانه وتعالى أكتسه وإلهي أكرمينيو oo meel weyn geenayo oo uu jano u siinayo
oo qofkaas uu darajooyinka jannada meel weyn uu ka geynayo oo aad u karaameynayo maalinta yawmal qiyaame uu soo dhaweynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo iyo janno uu ku soo dhaweynayo waa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada inna akramakum cinda allaahi eesh atqaakum waxaa thamarada toddobaad maxabatullaahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jeclaado inay dadku ku jeclaadaan in magaranaysaa uu malaa'igtu uu ku jeclaadaan ay ku jeclaadaan in malaa'igtii ay ku jeclaadaan balaa man awfaa bicaadihi wattaqaa fa ina allaha yuxibu almuttaqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qofkii balankiisa ka soo baxa ee oofiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muttaqiinta uu jecel yahay marka qofka muttaqiga markuu balanta ka soo baxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baqo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu jeclaanayaa ibn cumar ayaa wuxuu leeyahay man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbigiisa ka baqa qofkii rabbigiisa ka baqa xiriiriya raximkiisii iyo qaraabadiisii xiriiriya nusiya fi ajalkiisa qaar baa laga ilaawaya macnaha in badan ayuu adduunyada ku noolaanayaayo cimrigiisa waa loo yara dheereynayaa wathara maalah maalkiisuna wuu badanayaa oo maal badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala siinayaa wa axabbahu ahlahu ehelkiisana way jeclaanayaan qaraabadiisa ha ahaato faamiligiisa ha ahaato ehelkiisa ha ahaato xaaskiisa sababta quraanka aayado fara badan waxaa lagu sheegay ehelka haddii la sheego in magaranaysa quraanka aayado fara badan waxaa lagu sheegay ehelku inuu yahay xaaskaaga markana cidaas oo dhan way jeclaanaysaa